14 qof ayaa ku dhaawacmay ilaa iyo 4 kalena waa lagu leeyahay kadib markii uu dab ka qarxay dhismo weyn oo ay ku yiileen masaajid, dukaan iyo guryo la degan yahay. dabkan ayaa waxa uu ka qarxay dhismaha ka soo horjeeda xaafadda caanka ah ee Soomaalidu degan tahay ee loo yaqaano Cedar ee magaalada Minneapolis, gobolkan Minnesota. dabkan ayaa waxa uu dhacay goore aruurnimo ay tahay saacada gobolkan Minnesota 8:07 daqiiqo, taariikhduna ay ku aadanayd bishii koobaad kowdeeda sanadka cusub ee 2014. guryihii ku yiilay dabaqa labaad iyo dabaqa saddexaad ayaa waxay ahaayeen badidooda guryaha nooca loo ah nafarada oo ay deganaayeen dad hal qof, waxaana badidood ama gaba ahaantoodba deganaa dad Soomaaliyeed. dadkan ayaa markii uu dabka qaarsaday dhismaha intii haleeshay albaabka mooyee waxa ay intii kale ka daateen dariishadaha, waana sababta keentay inuu dhaawac fara badan iyo jajab badan uu ku yimaado dadkii ku dhaawacmay dhismayaashaas, kuwaasoo badidood ah jab ka soo gaaray lugaha iyo miskaha. dadkii ku dhaawacmay dhismayaashan ayaa waxaa loo qaaday cusbitaalaadka ku yaala gobolkan Minnesota si looga daweeyo dhaawacyadii ka soo gaaray. Axmed Jaamac Muuse Dhagaweyne oo isagu ah mid ka mid ah mulkiilayaasha dukaanka Utanga ayaa waxa uu nooga warramay in uu arkayay sida ay wax u dhaceen. waxa uuna sheegay subaxnimadii markii uu soo gaaray dukaanka inuu kula kulmay askari hortaagan oo uga digay in uu galo dukaanka kadib markii koronto ay xagga sare ka qaraxday. dukaankan waxaan ka mid ahaa owneriska ilaa iyo 13 sanadood ilaa iyo 13 sanadood waxaana la oran jiray Utanga Grocery baa la oran jiray. Utanga waa dukaan caan ka ahaa area-da Cedar and Riverside, marka oo customer badan ku xirnaayeen. marka dukaanka magaciisu nooca qaar baa saldka u hormaray, qaar baa lugaha ma garanaysaa qofku ma ogtahay dad tababaran maahe qaab kasta ay u soo dhacayeen. marka booliska marka qabanayay oo bustayaal iyo ku duuduubayay, qaar baa iyagoo xataa qaawan soo dhacay. marka waa dhibaato weeye, waa dhibaato aad u xun weeye, aad u xun. dhaawaca ka soo trauma maskaxiyan baa ma garanaysaa dadka dhaawac u gaaraya. dad badan oo aan qaano oo customerskayga aabaa jiray, nin la yiraahdo Cabdi Qoobay, nin la yiraahdo Ina Aadan Weli Garaad Cali, waxa jira nin la yiraahdo Cali Jaamac, rag badan oo ma garanaysaa nin la yiraahdo Cabdi Xange. ilaahay ha u boogadhayo, wixii dhintayna Allah ha u naxariisto, wixii dhaawacana ilaahay caafimaad waa run weeye. gabar baa ku jirta la yiraahdo Xiis oo sinta iyo lug ka jabtay oo ka soo booday dabaqa labaad. marka ilaahay caafimaad ha siiyo baan leeyahay dhammaantood. dhismahan xaggiisa dambe ayaa waxaa ku yaalay masaajid ay aad u anfacsadaan oo ay ku cibaadaystaan dadka Soomaalida ee degan xaafadaha Cedar. imaamka masaajidka oo aanu kula kulnay xilli ay galabnimo ay tahay masaajidka hortiisa ayaa isagana waxa uu nooga warramay sida ay wax u dhaceen iyo masaajidka xaaladiisa hadda. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa waxa uu sidaasoo kale u mahadceliyay maamulka gobolka Minnesota iyo magaalada Minneapolis sida ay ugu soo gurmadeen, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. marka hore adiga iyo waxda Soomaaliyeed salaam labaad waxaan doonaa intaan ka jawaabo si wax u dhan inaan u asiiray dadkii Soomaaliyeed dhibaatadan aadka u naxdinta badan oo ay soo gaadhay, dadkii ku dhaawacmay oo ilaa iyo hadda 14 qof u dhaawac marayo. muxuu ahaa 6 qof oo kamid ah dhaawacooda uu khatar yahay, la leeyahay 4 qof lama hayo. muxuu ahaa dadkaas inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu caafimaad siiyo, dadka maqanna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyagoo bad qaba oo caafimaad qaba in la helo. waxaan kaloo doonayaa halkan inaan uga tacsiyeeyo walaalihii businesskooda u baaba'ay, isaga laftooda businesskoodii iyo hantidoodii iyo ay baaba'day, iyagana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu badal khayr qaba siiyo. sida wuxuu dhaceen qaaliban waxa warbixinta fuulka bixin doona dawladda, laakiin abaarihi 8 subaxnimo ayaa dab uu ka kacay dhismahan, kadibna dabkii wuxuu galaaftay dukaanka iyo dhismaha weyn ku dhagan ay dadku deganaayeen ayuu galaaftay. masaajidka saad u jeedo dhaawac fara badan uu soo gaarsiiyay oo maanta salaadii duhur iyo casar iyo maghrib iyo cisho midna laguma tukanin. hadda aad u jeedaa masaajidku wuxuu xiran yahay,
waxay qolada dabdamisku yiraahdeen ilaa annaga aan amar bixino lama isticmaali karo marka iyagan ka warsugaynaa ilaa barito sida xaalka uu noqdo marka damage-ka iyo muxuu culaysku waa sidaas dabku markuu dhacay dawladdii dabka loogu talagalay cidii dabdamiska waxba ka maqneen baa timid waxa yimid qolada dabdamiska waxa yimid ambulance waxa timid muxuu ah department of police ama qolihii booliska ayaa yimid wax yar kadib waxa yimid ninka dhalinyarada ee Soomaaliga hadda laga doortay xaafadan oo ah muxuu city council ama dawladda hoose muxuu Cabdi Warsame ayaa yimid isla wax yar kadib waxa yimid duqa magaalada Minneapolis hadda ay ugu dambeysay xafiiska Barito oo Barito ka tagaya ayaa yimid waxa kaloo isla markaa joogay oo la socday duqa magaalada Minneapolis bari xilka la wareegaya ayaa isaguna yimid oo la socday marka intaas oo dhan waxay ku tusinaysaa gurmadka waliba intaas umayna ku ekaan imaatin ay muxuu ahaa dhibkii dhacay ay arkaan oo kaliya waxay sameeyeen in dadkii jirranaa dadkii dhaawaca noqday cisbitaalada ku soo booqdaan ayay sameeyeen taas marka waxay ku tusinaysaa meesha dawladda ka jirto wanaag iyo qiimaha ay leedahay waxa Ahmed Laari TV-ga Somali Sat magaalada Minneapolis